بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. على الحقيقة اللهم اجعلنا من الفائزين. انت النبي قرأ عليهم بس إلههم لغير انت آن الدنيا ده فساد كقادم إلههم لغير. اللهم أنت ربي وأنا عبدك. waxaan ku arkayay baraha bulshada nin ra'iisul wasaare ku-xigeenka soo dhigay sawirkiisii iyo baasaboor Itoobiyaana iyo magacaasaa la oran jiray. aska nasiib darrooyinka dalka ku habsaday bay ka mid tahay. 80% waxay Maraykan ku galeen ama damiinatay Maryam Mursal iyo qaar la mid ah. waxay ku galeen Yibir oo waxay ku galeen Yaxar oo waxay ku galeen Tumaal oo waxay ku qaateen magac walba. minority baanu nahay. dadkii la soo laayay baanu nahay. nin sheegtay qabiil kale iyo naag sheegatay qabiil kale maba xishoodaanba. markaa nimaan xishoonayn inuu ra'iisul wasaaraha ku tilmaamo Itoobiyaan isagoo ah nin ciida gala ah. dadkaa waxaynu oranaynaa waa dad nolosha ka dhacay, waa dad waaqiciga ka dhacay. waxaa jira 3 qof, nin goblamay oo aan is ogeyn, nin dhintay oo aan is ogeyn, iyo nin qurmay oo aan is ogeyn. 3da anigu midna idin fasili maayo, laakiin 3daasuba Soomaalida waa ku jiraan. ummadda Soomaaliyeed way talax tagtay, xishood way ka tagtay, dhaqan way ka tagtay, waxba way ka tagtay. waxaan leeyahay ra'iisul wasaare ku-xigeenku waa Isaaq, waa Garxajis, waa ciidagale. inuu Itoobiya wax ka bartay laga yaabe. imise Soomaaliyeed baa dhulkaa wax ka bartay, laakiin in lagu sheego Amxaar waray daw maaha. kan ku sheegayna isagu ha soo dhigo baasaboorkiisa warbaahinta. qodobkaa intaasaan ku dhaafayaa. dhaqanka Soomaalida iyo xeerka Soomaalida ninka gabadh caaya xeer baa qabta. Cabdiweli Cali Gaas oo noqday ra'iisul wasaare iyo wasiir ayaanu uga taagla'nahay Xaliimo Yari. Cabdiweli waxaan u sheegayaa Xaliimo waa naag habar gidira. waa gabadh fiqishini ah. deegaanka ay degtana waa taqaan, waa Dhuusamareebo, waa halka aad ku dhalatay ee aad ku barbaartay. Laascaanood waa degtaa, way kaa deegaan weyn tahay. anigu faro iyo tiro iyo waxaa midna ka hadli maayo.
waxaa lagugu leeyahay xaal, waxaa lagugu leeyahay xeer, waxaa lagugu leeyahay xeegaan. intaanay tolkeed u tegin, intaanay Soomaali u tegin, warbaahintii aad ka hadashay ka hadal oo waxaad tidhaahdaa raalli ahow Xaliimo Yareeyey, waa iga talo. laakiin u malayn maayo inaad qaadanayso waa tii la oran jiray kani kiniin buu ku nool yahay. haddaada kiniin ku noolayn dee gabadh mabaadan caydin, maxaa gabadh kuu geeyey? soomaaliyey, ninka ra'iisul wasaaraha idinka doonaya ee shalayna ra'iisul wasaare aad siiseen waa Cabdiweli, waa ninka gabadha caayaya. qodobkaana intaasaan ku dhaafaya. waxaan aad uga xumahay oo aan gar Soomaali ku ahayn in Cumar Cabdirashiid oo lagu eedaynayo baddii Soomaaliya in mar labaad ra'iisul wasaare laga dhigo. waxaynu noqonaynaa dad aan kal qabta wax lahayn, waxaynu noqonaynaa dad aan taariikh lahayn. waxaan Soomaali leeyahay Cumar Cabdirashiid wuxuu dalkan u geystay ayaa qodxanyahoodii la gurayaa. laba markaa iskuma heshaan inaad Cumar Cabdirashiid ammaantaan iyo inaad dawladda qodxanyihii uu inoo dhigay guraysa aad maagtaan. dee haddaydnaan waalayn, ila anigu hadda Soomaalida waxaan u haystaa dad waalan oo u baahan dhakhtarka maskaxda, oo u baahan in la baadho. dad colaada ku soo jiray oo dawlad la'aan si 30 sano ku soo jiray, dad miyir qaba aniga ilama eka. qodobkaana intaasaan ku dhaafaya. ra'iisul wasaaruhu wuxuu ku dhawaaqay maalin dhoweyd election. xukuumaddaydu doorashay ka shaqaynaysaa. qaar baa Twitterka ku soo ammaanay. maalintii labaadna qaar baa Twitterkii kii uu ku ammaanay ku kritikaareeyey. maxaynu ku tilmaannaa qofkaa? waxna wuu doonayaa oo waa murashax oo waxbuu inaga rabaa. anigu magacaabi maayo. anigu sidaydaba qolada aanu ishayno is-eryoonayno baan magacaabaa. dadka intiisa kale xeer iyo xaagaan baa naga dhaxaysa. waa naqdiyaa. hadduuse qofku isoo galo ma macaasho. maxaa wacay? waxbaba waanan rabin. nin wax rabana anaa ka adag. waxaan kaloo arkaayey 7 xubnood baa la yidhi bay Muqdisho leedahay. 2 sannadood baa la qaylinayey. qaar baa saaka lahaa eedaynayey oo weji kale u yeelayey. maxaynu dadkaa ku tilmaannaa? majaaniin. haddii dawladnimada iyo waddaniyaddu ay colaad qofkaa gasho, waxaad rabtaa baad ku hadlaysaa. lagana yaaba inaad kuna aakhiro siigtid. alxaqiiqa. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.